kulan ballaaran oo maanta ka dhacay hoolka dawladda hoose magaalada Oodweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol heer degmo culimo awdiin cuqaal waxgarad haween dhalinyaro kulankan oo bulshada iyo maamulku kaga tashanayeen qaabkii cashuuraha loo qaadi lahaa maadaama maamulku si rasmi ah u bilaabayo bisha 20-dan 2013 cashuur qaadistii gobolka ugu horeynba waxaa kulankan ka hadlay duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse isagoo sheegay in dawladda hoose xidhnayd markii hore laakiin imika laga bilaabo ay si hagar la'aan ugu shaqeyn doonaan bulshada aanay noqon doonin dawladoodu mid ragaadisa gobolka kuna salaysnaan doonaan maamulku mid la tashada shacabka aanu noqon doonin mid kaligii tashada waxaana uu intaasi ku sii daray maayirku inay si rasmi ah cashuuraha bisha labaad uga qaadi doonaan diyaarna u yihiin dhammaan shaqaalihii dawladda hoose qabsado laamaha dawladda shacabka almaamul runtii waxa la dawladda soo saartay go'aamo dhowr ah ama qaraaro waxaana bilaabaynaa cashuurtii kowda bisha labaad adoo la yiraahdo waxaana cashuurtaas noqon doontaa dhowr qaybood runtii shaqaaluhu way soo ansixiyeen qoluhu waa ansixiyay shaqaalihii dawladda waa diyaar waxaan ku rajo weynahay in markay shaqaalahaas bilaabaan inaanay dhibtoon cashuurta loo soo eegmaday shacabku u huraan u roogaadaan lacagtan laga qaaday inay nagu dabagalaan maadaama aan ka duwanay xildhibaanadii golaha deegaanka horeeyay fidiyalkan aad tihiin kuwa soo doorateen oo fartooda ugu codeyseen kuna daba joogtaan wax qabadka runtii anaguna wax balanteedo ah in waxa shacabka reer Oodweyne guud ahaan laga qaado in wax loogu qabto muuqda oo la tuso oo 6 bilood ba shacabka reer Oodweyne la iskugu yeero oo la yiraahdo waxaasaan qabanay muuqda oo aan qarsan waxaan qabanay ma qarsanayno idinkuna waxa la idinka qaaday qarsanina nabadooda ugu dabagala bixiyana wixii idinku waajibay cashuurta deegaanka runtii waxa noo farxada aan golaha deegaanka noqon doona golihii koowaad sidaan horeba u soo sheegay waxaan sugaysaa hawl culus oo ilaa iyo shirmaale ilaa iyo ceeg ilaa iyo ogsiila ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday kulankan xildhibaan Yuusuf aw Maxamed xildhibaan Maxamed Faarax Caaqil Maxamed Biixi madaxa caafimaadka gobolka Ibraahim Jaamac Kaahin gudoomiyaha waxbarashada gobolka Kayse Cabdi Ducaale iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer Faarax Cabdullaahi Xasan iyagoo oo dhamaantood ka midaysnaa inaanay farkaliya fool dhaqin ay bulshadu si daacadnimo hufnaani ku jirto ula shaqeeyaan maamulka si habsami lana u bixiyaan cashuuraha waqtigeeda u soo wada daro maamulkan cusub ee gobolka Oodweyne ayaa ah mid si hagar la'aan ula shaqeynaya bulshada lana tashanaya barwaaqo aadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Oodweyne.